kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo si walba aad baqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada warkeena ugu darana waxa kamid ah dagaalo lagu hoobtay oo ka socda caasimada deegaanka Axmarada magaalooyin waaweyn oo Tigreegu ay soo bandhigeen inay gacanta ku dhigeen duqii magaalada Shawar Robit oo xalay la dilay iyo dagaal xoogan oo halkaas ka socda goobaha la kala maraya ee sida rasmiga dagaaladu uga socdaan ayaan idin soo gudbin doonaa jabhad cusub ayaa looga dhawaaqay deegaanka Sidamo taasi oo la sheegay in ay taageerayaan Tigreega ayna soo dhaweynayaan iyadoo Tigreegu ay ku soo wajahan yihiin deegaanada Sidama TPLF ayaa waxay soo bandhigtay ciidamo Eritrean ah oo ay ku qaqabatay dagaalkii ka socday deegaanka Axmarada iyo midka Canfarta waxay dhinaca kale xog la yaab leh ay ka heleen sargaalkii sare ee ciidamada 11aad ee Itoobiya militariga dalka Itoobiya ay ku qabteen maalintii la soo dhaafay dagaalkii ka dhacay magaalooyinka Waldiya waxa sidoo kale idin soo gudbin doonaa xog la xiriira sheegashada TPLF ee ay sheegayso in ciidamo halkaasi ka dagaalamayeen ka socday dalka Eritrea xaalad adag ayaa dhinaca kale ka taagan xuduudda deegaanka Tigreega iyo midka Eritrea iyadoo shalayta ay dagaal lagu kala nasanin oo halkaasi ka socday dagaalkana waxa qayb ka ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo duqeymo xoogan ka geysanaya magaalooyinka waaweyn ee gudaha deegaanka Tigreega khilaaf xoogan ayaa ka taagan magaalada Jigjiga waxaana halkaasi isku gacan saaray madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo hoggaanka nabadgelyada Mubashir waxayna ka dhalatay kadib ciidamadii loo diray iyo sida loo maareynayo ciidamada New Police ee lagu soo daadguraynayo furimaha hore ee dagaalka ee deegaanka Axmarada qodobadaasi iyo kuwa kala faahfaasanaya warkeena kaga boganaysa waxaana suurahay igula sugan saaxiibkay waxaana oo isha ku haya xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya waxaana soo aad iyo aad baa mahadsantahay Sintak haddii aynu ku bilowno dagaalka deegaanka Axmarada dagaal xoogan ayaa ka socda caasimadaha deegaanka Axmarada khalkhal amni ayaa ka jira qax baa ka taagan waxaa la laayay mas'uuliyiin sarsare oo maamulka dawladda deegaanka Axmarada ka tirsan bal xageen la kala maraya dagaaladii halkaas ka socday aad iyo aad baad mahadsantahay dagaalada ka socda deegaanka Axmarada iyo Canfarta waxaad moodaa in uu haatan sii fidayo oo magaalooyin waaweyn maalinba maalinka ka dambayso ay sii qabsanayaan kooxaha ururka TPLF iyo sidoo kale kooxaha ay ka helayaan caawinta oola waxaana la arkayay ciidamadii ugu badnaa abid kuwaasi oo ka socdo deegaanka Tigreega isla markaana ayagu ku socdo xawaare zaa'ida oo ay ku qabsanayaan magaalooyin waaweyn xalayto maayarka magaalada Shawar Robit ayaa la dilay waxayna arintan wali salka ku haysaa waxaan ognahay magaalooyinka Shawar Robit iyo magaalooyinka waaweyn oo dhanba Dhazey Kombolja dhamaantoodba in habeenadii ugu dambeysayba ay ku jireen bandowaasi oo looga lahaa sidii lagu yareyn lahaa khataraha ka imaanaya kooxaha TPLF waxaa haatan isa soo taraysa dilka odaygan iyo waliba in ay haatan meeshaasi magaalada Shawar Robit cabsi weyn ay ka taagan tahay kadib markii dilka ay laamaha ammaanka ku eedeeyeen kooxo ku dhumaalaysanaya gudaha magaaladaasi isla markaana la filayo inay ka mid yihiin kooxda TPLF dhanka kale Santago waxaa soo baxaya warar ayadana ay saa iskula dhexmaraya warbaahinta Tigreega taasi oo ayadana dhabaha u xaadhaysa in xooga TPLF ay qabsadeen magaalooyin waaweyn isla markaana la arkayaba meelaha qaar dabaaldegyo waaweyn oo ay dhigayaan ciidamada TPLF-ta kuwaasi oo ay ku muujinayaan farxadda iyo sidoo kale damaashaadka kadib markay qabsadeen magaalooyin waaweyn oo Axmarada iyo sidoo kale Canfarta ka tirsan dhanka kale kooxaha TPLF waxay soo bandhigeen askar ay ku sheegeen inay ka mid yihiin ciidamada waddanka Eritrea waxaan ognahay Eritrea inay awood aan caadi ahayn ay ku leedahay gudaha dalka Itoobiya isla markaana waxaan ogeyn in 5 bilood ee xabad joojintu ay socotay ciidamo aad u tiro badan oo ka socdo deegaanka Axmarada oo ayaga ay lagu soo tababar waddanka Eritrea in lagu soo daabulayo gudaha ciidamadaasina waxaa la sheegayaa inay wali ku jiraan saraakiil ka tirsan kuwa dalka Eritrea sida ay noo xaqiijiyeen ama aanu ka arkaynaba warbaahinta sida gaarka loo leeyahay dalka deegaanka Tigreega iyo waliba warbaahinta Al Jazeera oo ayada laftirkeeda si toos ah u soo xiganaysa saraakiishii la qabtay ayaga ka tirsanaa deegaanka dalka Eritrea waxaana waxay sheegeen Tigreegu inay gacanta ku dhigeen sargaal sare oo watay ama xukuumaya ciidamada taliska 11aad ee militariga dalka Itoobiya wuxuuna sheegay sir la yaab leh oo ku aadan in ciidamada Eritrea ayba dagaalka qayb ka ahaayeen ka socday deegaanka Axmarada iyo midka Canfarta Eritreana waxaa la ogsoon yahay in ay tahay dal ka baxsan dhinaca dalka Itoobiya xuduudaheedana ay u tabarlaadahay oo Tigreegu ay dagaal xoogan kula jiraan bal maxay tahay ujeedka ciidamada halkan loo keenay maxaase ka jira sheegashada Tigreegu ay sheegayaan in ciidamadaasi ay gudaha ku jiraan ayna soo qabteen saraakiil Eritrean ah oo halkaas dagaal kaga jiray
hor Santiago mid baaba ceeb ah dalkii Ethiopia oo 120 milyan maanta inay u cawdaan dal ka yar 4 milyan oo Eritrea waxaan ognahay tiradeeda inay 4 milyan iyo wax ka yar ay tahay inay maanta u cawdaan oo ciidamo wadankaasi ka socda ay joogaan gudaha dalka Ethiopia taas Ethiopia meel ka dhac weyn bay ku tahay laakiin sargaalkan la qabtay wuxuu ka shifay sira ku gadaaman in ay jiraan ciidamo ka socda wadanka Eritrea kuwaasi oo ka dagaalamayay ama ka barbar dagaalamayay ciidamada deegaanka Axmaarada kuwa dowladda federaalka iyo waliba ciidamada deegaanka Canfarta oo ayagu dhamaantoodba dagaal kula jira kooxaha TPLF dhanka kale Santiago waxa iyadana dagaal aan lagu mahadinin uu ka socdaa xuduudda u dhaxaysa deegaanka Tigreega iyo dalka Eritrea kaasi oo shalayto ciidamo isku dhafa oo ka socda dalka Ethiopia iyo waliba kuwa Eritrea ay duulaan xoogan iyo weerar aan loo meeldayn ay ku soo qaadeen dadka shacabka ee magaalooyinkaasi ku dhaqan waliba ayagu ay dhankooda sheegeen in ay jiraan kooxo halkaasi lagu tababarayay oo fadhiisimo ku lahaa oo gebi ahaanba cagta ay mariyeen dhanka kaleeto darawal ka tirsan hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha deegaanka Tigreega waxa uu noo xaqiijiyay in gebi ahaanba duqaymihii iyo sidoo kale duulaankii shalayta ay soo qaadeen ciidamada wadanka Ethiopia iyo Eritrea in lagu xasuuqay dad aan waxba galabsanin halka isbitaallo iyo waliba goobo lagu daryeelayay dhaawaca iyo waliba dadkii dhibaatada iyo diifta ka soo gaadhay diyaaradihii duuliyaha aan lahayn ee duqaynayay guud ahaan deegaanka Tigreega in ay haatan ay mar labaad duqayn lala beegsaday dhanka kaleeto dad barakacayaala oo ka qaxay magaalooyinkii lagu dagaalamayay ayaga laftirkooda saameyn xoogan ayay ku yeelatay qaxan labaad ee haatan deegaanka Tigreega ka socda tan kaleeto oo ah in ciidamada deegaanka dalka Eritrea ay wali ka dagaalamayaan ka barbar dagaalamayaan ciidamada dalka Ethiopia arintaasi waxa shaaca ka qaaday taliyihii guud ee taliska 11aad ee dalka Ethiopia oo gacanta u galay kooxada TPLF waxa uu ka shifay in ay jiraan saraakiil iyo waliba ciidamo aad u tiro badan oo ka socda wadanka Eritrea oo haatan ku sugan goobaha aynu soo sheegnay ee gacanta ku dhigtay ururka TPLF dhanka kale xooga TPLF waxa ay xaqiijiyeen in dagaalkani ay soo galeen quwado waaweyn kuwaasi oo yani ka garab dagaalamaya dowladda federaalka ee Ethiopia haatan waxay u muuqataa Ethiopia in ay ku fashilantay kooxda TPLF oo ognahay taagteeda iyo waliba sidoo kaleeto inta ay tira dhan tahay inay haatan dowladda Ethiopia 120 milyan ka badan inay u taaglaadahay qabiil aad u yar oo haatan dhibaato ku noqday saddexda deegaan ee xuduudda ay leeyihiin waa hagaag jabhad cusub ayaa looga dhawaaqay deegaanka Sindama waxaana la sheegay jabhadaasi in ay sheegtay soo dhaweynta Tigreega ayna xiriir la leedahay ciidamada Tigreega iyo sidoo kale maamulka Tigreega bal jabhadahan cusub ee hadda ku sii fidahaya gudaha dalka Ethiopia maxay yihiin awoodda inta dhan see Tigreegu xagee ka keeneen Santiago haddii jabhadba looga dhawaaqo gudaha dalka Ethiopia horey waxaa jirtay jabhado kaleeto loogu dhawaaqay oo Sidama ka horeeyay dhammaantoodba waxay calaaqaad cusub la yeesheen kooxaha TPLF waxaan ognahay TPLF hanaanka ay ku socotay ay ku howlgelayso ay kula dagaalamayso dowladda iyo deegaanada ay qabsanayso horumarada ay sameynayso inaysan jirin koox kaleeto oo dalka ka dagaalanto oo hawshaasi qaban karta taasi ayaana sahashay in kooxda TPLF koox walba oo looga dhawaaqa deegaankeeda haday noqoto deegaanka Soomaalida haday noqoto deegaanka haatan aanu sheegnay Sidama haday noqoto deegaan kastaba inay tababar u fidinayaan ayna qalqaalinayaan deegaan kasto haatan jabhada in ka jirin sida deegaanka Soomaalida oo kaleeto in ay rabaan inay ku abuuraan jabhado ayagu ay gacan siiyaan isla markaana tababaro u furaan sifo ay u jabiyaan nidaamka haatan ka jira dalka Ethiopia oo asagu kala qaybiyay dhammaan qowmiyadihii midaysnaa isla markaana kala dambeynta iyo sidoo kale xuduudaha lahaa oo haatan aan ognahay in deegaan la nabada aysan jirin oo xuduudaha ay ka socdaan dagaal oo dhibaatooyin kala duwan ay ka socdaan taasi ayaana sababtay in ay TPLF haatan galaangal ku yeelato deegaanada aysan ka jirin jabhadaha Sidama waxaan ognahay inuu yahay maamul cusub oo inta uu imaaday Abiy Ahmed lagu dhawaaqay haatanna waxaad moodaa qaabka uu socday jabhadahan lagu dhawaaqay nidaamkan haatan uu sameeyay TPLF xiriirka uu la sameysanayo in ay sababi karto in dowladda Abiy Ahmed oo haatan aan ognahay deegaanada aysan dhibaatada ka jirin ama dagaalada ba'an ay ka jirin uu kamid yahay deegaanka Soomaaliya Sidama iyo deegaano lamida in haddii jabhada looga dhawaaqo ay xaaladu barakamala noqonayso oo Abiy Ahmed kursiga uu sii fadhinaynin taasi ayayna haatan TPLF taagtikoodii dagaalka ay u bedeleen dagaalku daawadayaal wuxuu u dhaxeeyaa deegaanka Tigreega iyo midka Axmaarada
walow axmaaradu ay taageero buuxda ka helayaan dhinaca dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ama maamulada ama kilalada dalka Itoobiya oo dhan awoodda intaa dhan oo la iskugu geeyay deegaanka axmaarada iyo midka canfarta haddana Tigreegu waxay soo bandhigayaan guulo xoogan oo ay ka gaarayaan dagaalada ay la galayaan ciidamada militariga kuwa axmaarada kuwa canfarta liyu booliska jabhadda Faano iyo dhammaanba inta ka garab socota ama taageersan ra'iisul wasaaraha iyo xukunkiisa fariisimaha iyo sidoo kale difaacyada ciidamada ay halkaasi ku leeyihiin gabi ahaanba Tigreegu waa ay jabiyeen waxayna soo bandhigayaan maalinba maalinta ka dambaysa guulo waaweyn oo ay ka gaadheen halkaasi saraakiil ay gacanta ku dhigeen iyo sidoo kale magaalooyin waaweyn oo ay gacanta ku dhigeen axmaarada magaalooyinkooda waaweyn waxa ka taagan qax iyo barakac dadku waxay u qaxayaan dhinaca caasimadda Addis Ababa iyo dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida oo ay maciin badayaan inay nabadgeliyo tahay si ay naftooda ugu badbaadiyaan waxa la sheegayaa shantii bari ee dagaalku socday in ay qaxeen in ka badan 500,000 ayna galeen deegaanada aysan dagaalku ka socodeen dhinaca kale jabhadda xoreynta Oromiya ayagana dagaaladoodii way laba jubaareen waxayna ka wadaan oloola ciidan oo agagaarka caasimadda Addis Ababa dadka Addis Ababa ku sugan ayaa cabsi xoogan waxay ka qabaan in jabhadda xoreynta Oromiya ay weerar ku soo qaadi karaan caasimadda dhibaato xooganna ay keensan karaan walow ciidamada ugu badnaa ay halkaasi ku sugan yihiin waxaan mar labaad su'aal ka weydiiyay saaxiibkay wacana oo stuudiyaha igula sugan bal xaaladda sida ay u eg tahay iyo qaabka ay ku socoto xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wacana mar labaad soo dhawow bal xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee 5 sano ugu dambeysay dagaalka xoogan marti gelinaysay bal sidee kula muuqataa xukunkiisan iyo sidoo kale adaygan iyo dagaaladan si laba jubaarmaya jabhadahan carada ka badan ee maalinba maalinta ka dambaysa ku dhawaaqaya dagaal isaga looga soo horjeedo Santiago dalka Ethiopia burbur noocan oo kaleeta iyo kala qaybsanaan horey oo ma soo marin tan iyo xilligii uu ka tilniyay Kiligitaliski يعني كأرميني جودها أما بقركي دلك إثيوبيا مركا كلا قيب سنانتن يا كلا فقوقا واحد مدائن وكوي ماضي لبكون يستوي تبنكي إسبدل كي كدعي دلك إثيوبيا وأيضو أهر سيدي إني جبيهان بقوي ميديه أي كلا عران هاتا وحالق من أبي أحمد in uu xukunka iyo sidoo kale talada dalka uu miiska soo saaro hadii arintaasi la waayo oo gebiyaanba ay noqoto in aniga talinaya aniga power haysta aniga ciidan haysta ay sheekadu ku socoto gebiyaanba Ethiopia way kala dhaqaaqaysaa deegaano badan oo haatan mowqifkooda aan banaanka keenin si toos ah haatan way soo dhigi doonaan oo miiska soo saari doonaan waxayna ku dhawaaqi doonaan go'aan ka yaabiya maamulka Abiy Ahmed arintaasi hadii Abiy Ahmed uu kala waxaan ognahay Santiago sanadii 2022 keena soo dhaafnay bishii sagaalaad waxa lagu dhawaaqay in wada hadal yani ay Ethiopia dhan u midaysan tahay in la qaban doono arintaasi gebiyaanba ma aysan suurtagelin waxa sidoo kale oo maamulku ku dhawaaqay in guddi dhexdhexaada oo dhinacyada dhanba ay ka kooban yihiin in la magacaabi doono kuwaasi oo u horseedi doono ama sheegi doono goobta lagu kulmayo iyo sidoo kale waxyaabaha la kala tabanayo arintaasi gebiyaanba ma aysan dhicin waxaadna moodaa inuu xukunka iyo talada dalka uu jaabka gashtay arintaasi ayaana keenaysa inay dhammaan qoomiyadaha kala dhaqaaqaan ayagii baa la isku diray waxaan ognahay Canfar iyo Soomaali waxa kala dhex taagan dhammaanba waxaad moodaa in deegaanadu ay haatan horayaan oo waxa laga rabay in ay yani u hoggaansamaan dawladda federaalka haday noqoto iyo sidoo kale haday noqoto in dagaalka dalka Ethiopia ka socda laga kaashado dhammaanba waa lagu kala aragti duway sagaalka kilal ee uu ka kooban yahay dalka Ethiopia deegaanka Soomaalida oo kaliya ayaa nabad ka ah oo jabhadii aysan ka jirin deegaanka Soomaalidana madaxda ugu sarreysa waxa maalmihii ugu dambeeyayba ay martigelinayeen khilaaf xoogan qaabka loo maareynayo iyo ciidamada new booliska ee lagu sidaad gureynayo furimaha hore ee dagaalka hoggaanka nabadgelyada oo isagu ku shuqul leh dhinaca ciidamada iyo ammaanka dawlad deegaanka Soomaalida iyo sida loo maareynayo ciidamada iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay inay isku gacan saareen arrimo la xiriira ciidamadii la geeyay deegaanka Axmaarada iyo kuwa cusub oo la filayo in lagu daadgureeyo goobaha ay dagaalku ka hurayo ee deegaanka Axmaarada iyo midka Canfarta waxayna mas'uuliyiinta qaarkood tilmaamahayaan in ay jirto faragelin madaxweynuhu uu ku samaynayo laamaha amniga iyo cidda ku shuqul leh sida loo maareynayo ammaanka dawlad deegaanka Soomaalida iyo ciidamada waxaana mar saddexaad su'aal ka weydiiyay saaxiibkay wacana oo isha ku hayay xaaladda dawlad deegaanka Soomaalida
waxaana khilaaf xoogan ayaa ka taagan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad deegaanka Soomaalida bal khilaafkaasi muxuu ka dhashay adigoo noo soo koobay aad ba maasan tahay Santiago tan iyo intuu bilowday dagaalkan ka qarxay dalka Ethiopia waxaad moodaa in mas'uuliyiintu ay ku kala aragti duwan yihiin ciidamadii loo diray deegaanka Axmaarada oo aanu shalay warkeeni ku sheegnay in dhibaatooyin kala duwan ciidamadaasi ay soo gaadheen isla markaana ay haatan ayba jirtaba baqdin weyn oo laga qabo in ciidamadaasi gebi ahaanba ay cagta mariyaan maadaama ay la dagaalamayaan ama ay ka garab dagaalamayaanba cadawii sida xun u gumaaday shacbigii Soomaaliyeed ee ku dhibaateeyay galbeedka gobolka City dhanka kale tan mas'uuliyiintu isku dhacoodu wuxuu soo bilowday tan iyo xilligii dagaalku uu ka qarxay galbeedka gobolka City oo nogeen in lagu xasuuqay dad aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo ciidamadii in loo diro ay adkaatay maadaama Mustafa Maxamed Cumar uu si toos ah uga amar qaato ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia gebi ahaanna uu diiday in ciidamada halkaasi loo diro oo shacabkaasi la difaaco hoggaanka nabadgelyada iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida isku dhacoodu inta badan waxa uu ka soo bilowday dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolka City ee lagu xasuuqayay dadka aadka u tirada badan ee Soomaaliyeed haatana waxaad moodaa inuu dagaalku mar labaad uu haatan uu qarxayba oo dhibaatooyin baan haatan laga cabsi qaba inay ka dhacdo magaalada Jigjiga maadaama mas'uuliyiintii dalka deegaanka ugu sareysay oo khilaafkooda haatan uu cirka isku shareeyay isla markaana ay shacbigiiba haatan ay ogaadeen ila wareedyo ku sugan magaalada Jigjiga ayaa maalmihii ugu dambeysay noo xaqiijinayay saraakiisha ciidamada New Booliska iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalidu inay isku khilaafeen ciidamada loo qaaday deegaanka Axmaarada sidoo kale Mubashir waa ninka hoggaanka nabadgelyada ugu sareeya dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana ay hoos yimaadaan laamaha amniga dhammaantood ee dowlad deegaanka Soomaalida wuxuuna sheegay inuusan raalli ka ahayn ciidamada loo qaaday dhinaca deegaanka Axmaarada iyo deegaanka Canfarta ee lagu difaacaya shacabkaasi xilligii dowlad deegaanka Soomaalida ama shacabka dowlad deegaanka Soomaaliduba ay la daadadhacayeen weeraro kaga imaanaya dhinaca argagixisada waana arinta khilaafka keentay ee maanta magaalada Jigjiga la isku haysto mas'uuliyiinta ugu sarreysa lama garan karo meel uu ku dambeyn doono khilaafkaasi balse xaaladda magaalada Jigjiga ayaa dad ku sugan magaaladaasi nooga dayriyeen mas'uuliyiinta iyo sidoo kale khilaafka cirka isku sii shareeraya iyo ciidamada tirada badan ee lagu sii daadguraynayo deegaanka Axmaarada dhinaca kale 2,000 ayay ahayd ciidamadii la qaaday ee New Booliska dowlad deegaanka Soomaalida 3,000 ayaa la sheegay in lagu dari doono maalmaha ay ugu soo aadan waana midda mas'uuliyiintu ay ku kala aragti duwan yihiin wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordha khilaafkaasi iyo xaaladda ka taagan magaalada Jigjiga iyo gabi ahaanba dalka Ethiopia tan iyo kulanti dambana waxaan idinka tagaynaa amaana Allah